qarax xoogan oo maanta ka dhacay ex-control afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa ilamaaya hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 80 qof sidoo kalena dad 90 qof ayay dhaawacyo ka soo gaadheen qaraxaasi waxaana wararku ay ku soo waramayaan in dadka inta badan ku dhaawacmay qaraxani ay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha magaalada Muqdisho warbixintan kooban ayaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho in ka badan 80 qof ayaa ku dhimatay qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen hay'adaha gurmadka caafimaadka degdega ah ee magaaladaasi sidoo kalena in ka badan 125 kale ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi oo ka dhacay isgoys aad u mashquul badan dadka qaraxaasi ku dhintay waxa ka mid ahaa 2 qof oo u dhalatay Turkiga sida ay xaqiijisay safaaradda Muqdisho ee dalka Turkiga oo barteeda Twitter-ka ku qortay arintaasi qaraxa ayaa ka dhacay bar control oo ku taala isgoyska mashquulka badan ee ex-control ma jirto cid wali sheegatay mas'uuliyadda qaraxani balse ururka al-shabaab ayaa badiba magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ah ka fuliya qaraxyada noocan oo kala goobjoogayaal ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in qaraxan uu ahaa mid aad u weyn isla markaana aan ku koobnayn goobta uu ka dhacay oo kaliya balse firirkiisu uu gaadhay meelo aad u fogfog meeshan wax balaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye lisma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday shaqo nimanka ardada jaamiciintan oo ku jira halkaan ku dhamaaday meeshan way ku baaba'een indaada maxay qabteen markuu qarax dhacay waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidahayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshan xukuntay al-yoom iyo ninka la yiraahdo Saylac iyo meeshan ku jira hoos hadda ku jira waa rag baaba'ay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalka halka waa laga qaaday Turkiga wax ku noqdeen ya Turkiga halkaas u galay waa meeshaas meeshu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga waxa noociisa ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo mayrtay habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardayda markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhaclaabo wakaab wax la yaab laha dhacay dhimashada aragtay meeqa waxa weeye dadku 70 kama yara dhaawac waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 34 waka الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون أنت دمت الله نحرسته أنت كذا وعنتنا الله عافيه ماشان مصيبة كذا عادي ساكا أنا وحن كي مد عيالش مركا عيالش مركا كي مد جك بوينت مركا كوسود دقي يقرأ حرو كذا عاي مركا أنا جاري صوص عدو أوجد لكن جاري كلا أو تركيا وصلتي على الوقت في جاري إنه عيش ولا حق جبتها جاري قدينا نكون قياسة يعني قرأ أوجد يعني جاري أو تركي ليه هنا الوقت في جاري جاري تركي واستاف كيسي لبنان أو تركيا لبنان تركيا يو استاف ولا سوق هذا درب بيجانا الوقت في تمر كان جاري نال سوق هذا بروف تأهيد xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdirasaaq ayaa isaguna sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto 90 qof inkastoo aan la xaqiijin karin tiradaasi haatani gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish oo isaguna dhankiisa la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in qofkii isqarxiyay uu doonayay inuu gudaha magaalada galo balse ciidanku ay hortaa ku sameeyeen maadaama uu laga sheegay gaariga ka hor intii aanu isqarxin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مانتي أو معلن سبت أحضر يا غدا بشهر ديسمبر وحاكد عي إكس كنترول قرح وين أو صارن لغوصة رري جاري حمولة قرحاس جاريga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa ay hadda ma hayno dhaawacu waa 90 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas
waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. aan halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga ee shafka u dhigay ka badbaadiyey dhagarqabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada. waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah iyo mas'uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo. aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa.